بان سبحان قيامها لفرتك سبحانك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay bishu tahay 15 Jamaadul Aakhir 1440 oo waafaqsan 9 bisha labaad 2020 waxa isku yimid guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista gobolada Awdal iyo Salel iyo qaar kamid ah culimada Boorama iyagoo falanqeynaya arintii gudoomiyaha gobolka Awdal oo meel fagaara ah diinta ka caayay kana hadleen culimadu falanqeyn kadib waxa isku raaceen qodobadan soo socda. kow in arinta diin caygu yahay sida culimadu ay sheegeen gaalnimo diinta lagaga baxayo sida ay culimada islaamku ay ku ijmaaceen ama ay ku kulmeen. qodobka labaad waxa ay culimadu cadeynayaan xoojinayaan arintii ay sheegeen in ay sax tahay kuna degdegin marxaatiyaal ka badan intii loo baahnaana ay u hayaan arintaas. qodobka saddexaad arintaasi waa arin diiniya oo aan shaqo ku lahayn siyaasad iyo qabiil toonna. qodobka afraad guddiga wanaag faristu iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda diineed iyo midka qaran inay u gudbiyeen hay'adaha ay khusayso oo dhan baaritaan dheer kadib. 5 waxay ugu baaqayaan culimada waaweyn ee dalka dhammaantood inay si dhow ula socdaan arintan iyada ah. ilaahay baa mahadle. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.